munaasabad lagu maamuusayo soo dhaweynta isbeddelka cusub ee ka dhacay Soomaaliya isla markaana lagu taageerayo madaxda cusub ee dalka ayaa lagu qabtay caasimadda Kuala Lumpur ee waddanka Malaysia. Munaasabadaasi ayaa loogu magac daray rajada cusub iyo horumarka ay ku tallaabsatay Soomaaliya, waxaana ka soo qayb galay dhammaan ardayda kala duwan ee wax ka barata jaamacadda Islaamka. Professorada wax ka dhiga jaamacadda Islaamka ayaa ka sheekeeyay taariikhda Soomaaliya, iyadoo presentation ay goobta ku tuseen ardayda ajaanibta ah baaxadda ay Soomaaliya ku fadhido iyo kheyraadka ay leedahay. Professor Waliid oo u dhashay waddanka Masar ayaa ku dheeraaday taariikhda Soomaaliya iyo muhiimadda ay u leedahay wadamada Islaamka iyo waliba Geeska Afrika. Dhanka kale, Dr. Cabdirasaaq Nashaad oo macallin Soomaaliyeed wax ka dhiga jaamacadda ayaa ka warbixiyay isbeddelka iyo rajada ka soo ifbaxday Soomaaliya. Today there is a central government or central authority in Somalia. Iyadoo ay tahay mid aad u wanaagsan, isagoo intaa raaciyay in maanta Soomaaliya ay ka jirto dowlad buuxda. Ugu dambeyntii, ardayda ajaanibta wax ka barata jaamacadda ayaan wax ka weydiiyay Soomaaliya waxa ay ka yaqaanaan, iyagoo qaarka kalena ay u hambalyeeyeen isbeddelka cusub ee ka dhacay dalka. What I can say about Somalia, Somalian wadad fiican, runtii wadad fiican. Wan jeclahay Soomaaliya, wan kriyuda ina Soomaaliya aada. I would like to congratulate our Somali brothers and sisters for having the first elected president, I guess, since 40 years ago. Waxaan jeclahay inaan u hambalyeeyo walaalahayga Soomaaliyeed maadaama ay doorteen madaxweyne cusub. Waxaana u rajaynayaa Soomaaliya horumar iyo barwaaqo, isla markaana ay ku soo laabato miisaanka ay ku lahayd dunida Islaamka iyo guud ahaan caalamkooda. Saciid Cumar, Universal TV, Kuala Lumpur, Malaysia.